الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي horta waxaan leeyahay اطمئن وابشر iska bishaarayso qalbigana ku digo idigu lama tartamayso halka fadhida hadda da'da marka majaalistuna waa buuxda oo damac kale inuu kugu jiro waa dhici kartaa marka iska degano insha Allah waxaad weydiisay dhalashada iyo arrintaas runtii waqtiga bitaxdiid sida hadda dadka isbitaalada ku dhashay ama meelaha taariikhdeeda la yaqaan ku dhashay anugu kuma dhalan waxaan ku dhashay meel baadiye ah geed hoostiis ah isbitaal ahayn sida soomaalida hore u badnayd weliba iyadoo safar la yahay oo musaafir la yahay oo reerku naqraac yahay naqa waa taqaan soo maaha roobar guddo meeshaas ugu hayaamayo iyadoo reerku hayaan yahay oo naqraac yahay ayaa hooyo allah u naxariistee iyadoo awr saaran sida la ii sheegay awrkiina waa soo gaaray magaciisana gaardi baa la dhihi jiray ayaa isagoo la intifaacsado baan garaadsaday marka awrkaasay saarnayd hooyo iyadoo calooshii ku sidaa raxmatullaahi tacaala calayha geedka hoostiisa lagu leexiyay iyadoo islaamii halkaasaa ku dhalatay baa laygu yidhi geedkiina waa lay tusay horta taariikhdu bitaxdiid cid u garanaysaa ma jirto laakiin dadkii magaalada joogay oo maaragtay iyagu waxaa taariikhaha la socday ama bilaha la socday sida waalidka allah u naxariisto iyo ninkii walaalkayga iga weynaa oo curadka ahaa axmed idriis la dhihi jiro isagu markaa cadan joogay ayaa waxay ii sheegeen inay ku aadanayd 1958 bisha bitaxdiid ma garanayno laakiin waqtigaa haddii laga qiyaaso sheekh cabdirashiid waxaan ka weynahay ilaa 6-7 sano meelahaas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sheekh cali isaguna wiil yar wey wuxuu kusoo dhadhawaanayaa kuwa aan dhalay kusoo dhadhawaanaya taasna ma aha takbiir sheekh cali wuxuu soo daliishadaa oo xusuusiyaa in yar hadda halkaa kusii daro oo kasii farxiyo gurigayga maka wuxuu yidhahda miyaadan xusuusan markaan imaan jiray 80aadkii oo wiilkaaga cabdishakuur baan meel wada fariisan jiray ma xusuustaan buuri markaa imaan jirtay haddaa ma xusuusan kartid yidhi ani waa wiilkaagaa la ciyaari jiray على كل حال رجل واتاس وقت جاس حددتها تقريبا إلهي بس قرنية ماشي أقول شيء ودقمة قندلة بديه هذا وقول كباري صوماليا أبى الله نحرسته يسوي يقدونا ورجع بعض القاركيس واسكم مغلان لكن هذا مش شيء هدي أي ما ركتي واحد يجري المقدية أبى يسوي مهاجرة ودول كاسي من صوماليا وحركي من دلك إريتريا يقيمي وحسود دقي دول كاس بريقة وكبر وقوبي حوله بدن بومارة كان عصدوها وقالوا إن كاس ودن بوساسو يقندلا يعرولا يحابو يقسلي يدول كحيبتا صدن بدقي وتكام بقولها الحمد لله مركا يسوي هالكاس يقيمي لكن أنا صومالي بانا شبابكم اللي afahaan iyo dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan intaba iyo shucuur ahaan waxaan ahay Soomaali magaaladaas ku dhashay alxamdulillah iyada ku barbaaray dugsiga quraanka sida ardayda yani Soomaalida dhaqankeedu ahaa aan ku galay kadibna iskuulka waraadkiisii ku dhigtay kadibna xamar baan u wareegay magaalada Muqdisho iskuulka halkaas aan ka galay waxyaalaha igu tajribo fiicnayd markii aan dugsiga dhexe dhiganayay waxa ka mid ahayd ololihii reer miyiga oo aan ka qayb galay 1974 taasoo aan ka qaatay duruusta ugu waaweyn haddaan kusii hormarinayaa oo ah jacaylka dhulka Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada iyo barashada dhulka Soomaaliyeed waxa la geeyay aniga oo qandalo ku dhashay oo bari ka yimi oo Muqdisho markaa ku dhaqnaa baadiyaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe la geeyay arday 16 jirna waana halkaas yani dhaqankii Soomaaliyeed iyo dadkii Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed isdhexgalkeedii wax badan ka faa'iideystay aad kadibna
waxaan u baxay dalka dibaddiisa 1975 bishii labaad waxaan galay dalka Sacuudiga ilaahay amarkiis iyo cajaa'ibta iyo qudrada waxaan ku socday Kuwait risq raadis baan ahaa nin dhalinyaro ah oo 19 jir ah laakiin 3 maalmood baan waxaan qaatay oo ah transit dalka Sacuudiga markii la yidhi cimriyo xas kadibna 3 maalmood waxay noqotay 43 sano ilaa hadda inaan maka deganahay ilaahay fadligiisa meesha qofku marka wax loogu qorayo ama cimrigiisu uu noqonayo ama qadartiisu ay noqonayso ma oga meeshii dhulka ilaahay ugu barakaysanayd ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaankayga ka dhigay iyadan maaragtay intii cimrigayga ilaa hadda ilaa waqtigaas 19 jirka aan ahaa aan ka safro aan meelaha aado Yurub aado Mareykan aado Aasiya aado Soomaaliya aado in kala aado laakiin deegaankayga rasmiga ahay wuxuu ahaa ilaa hadda yahay magaalada barakaysan ee Makka Mukarrama iyada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunka iyo dacwada iyo diinta jacaylkeeda ilaahay ugu siiyey ma dhigan anigu sida saaxiibaday waqtigaas yimi waxay galeen jaamacadda Makka iyo jaamacadda Madiina anigu labada jaamacadood midna ma gelin ilaahayna ima qadarin laakiin waxaan isleeyahay waa ka sii fiicnayd baan helay oo ah inaan culimada hoos fadhiisto oo xarameynka labada masjidba aan culimadeeda wax ka barto masaajidda kaleeto culimadii casrigaan soo martay muslimiinta ducaadii ugu waaweynayd aan ilaahay wuxuu ii qadaray inaan hoos fadhiisto oo aan wax ka akhristo muddana aan la noolaado alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ku fikri jiray inaan iska noqdo daaciya waqtigaas aan 20 jirka ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ii xaqiijiyey qur-aanka sidii sheekh cabdirashiid yaraantii kuma aanan xifdin waa dul maray oo waa bartay laakiin ma aanan xifdin qur-aanka waxaan xifdiyey anigoo weyn oo caruur leh oo reer leh taasna waxay daliil u tahay qofku haddii ay ka go'an tahay sidii sheekhu haddaay uu yidhi diyaar ma u nahay inaynu qur-aanka xifdino haddii uu qofka niyad ka tahay diyaarna uu yahay waa xifdin karaa da' kasta uu yahay waxaa xalqadda xaramka markii aan sheekha ku dul akhrin jiray ama dhiganaya xifdiga nala dhigan jiray nin aniga markaa iga weynaa 70 jir oo Bakistaani oo dalka Bakistaanki wuuna xifdiyey qur-aanka 5 sano kadib wuu dhameeyey marka qur-aanka waqti kasta waa xifdin kartaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin inta ka dambeysay hadee shaqada adduunka oo dee meeshan aan dalkan ka shaqaysan jiray waxyaalo kala duwan oo shirkadaha iyo waxaas laakiin 30 sano u dambeysay dacwada iyo arrimahaas unbaa u badnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu sugo dariiqaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu khaatumada iigu hagaajiyo duruusta يعني نولشا سيان وركو كوغوسو قابيو الدرسي كواد او نولشاس يعني 60 سنه هذا قر مدخ كلا بخدي انا سليهاي وقادن كرتا دليردنا اي كفايديسن كران waxa weeye ilaahi subhanahu wa ta'ala ku xirnaantiisa iyo kitaabka quraanka kariimka jacaylkiisa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu kuugu furayaa jamiic abwaab kasta ama albaab kasta oo kaa xiran marka nicmada ugu horeysa ama dersiga ugu horeeya aan isleeyahay nolosha aan laga dhergi karin macaankeeda waa kitaabka qur'aanka ah waxyiga kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala taas waa dersi weeye درسي اللباد محاولي قفك هدي وليه هي همت عالية وميل إنه قارقور أما هدف يوجد وليه هي وبهي هي همت داسوين حنبارتو يلا أما قنيصة لبضا بعض أنا مستمركي مثلا القرآن كان حفظيني معلم كان salaada fajr saacad ka hor baan gurigiisa ugu tagi jiray kadibna waan soo qaadi jiray macalinka waxaan ku wada tukan jirnay xaramka shariifka ah ee Kacbada
kadibna darsiga ayaan uga bixi jiray kadibna gurigiisa ayaan ku celin jiray kadibna anigu markaasaan shaqadayda aadi jiray marka 2 saac ka hor waa inaan diyaar garoobaa salaada fajr ka hor ama saacad ugu yaraan ka hor si aan libisto u tago isaga u soo qaado aan u geeyo haddana u celiyo haddana darsi ka soo haddana aan soo noqdo intaas waxaa xambaarayay jacaylka marka haddii aad himadeeda hayso waxba kuguma adkaanayaan waxba sacab kuguma noqonayaan ha culaysan taasna waa qodobka saddexaad oo aan ku darayo waxa weeye يعني سفرتن iyo dacwadan badan duruus badan bay ku siisaa laakiin hal darsi ayaan isleeyahay waa la wadaagi kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaska aan ugu irsaaqo ducaada iyo dhalinyarada dadka dacwada diinta ilaahay doonaya ikhlaaska ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga inuu daacadnimo ka ogaado cid kaloo aad la wadaagi karto ama kula wadaagi kartaa ma jirto cid kaloo aad ugu mujaamalayn karaysaana ma jirto laakiin waa midda najaaxaaga ama guushaada koowaad keeni karta cid inaadan ku mujaamalayn cid idaanan tusin ilaahay qalbigaaga ha ka daalacdo waxa runtu tahay runna ula imo waad ku najaxaysaa dacwadaada ama diintaada ama waxay aad wado nooc kastaba ha noqdo midda labaadna waxa weeye dacwadaas waxaad wax ka keeni kartaa inaad naftaada siiso kulligeed say u dhan tahay oo aad iyada keenayso waxaa laga yaabaa dhinacyo badan oo kaleeto inay kaaga tagaan waa sax hadda masalan aniga waxaan qirsanahay inay waxyaalo badan oo kale igaga tegayaan carruurtaydii waxyaalo badan oo xaq ay u lahaayeen inaanay helayn reerahaygii inaanay helahayn anigii naftaydii inaanay helihayn وحيالي أدون كمان قال الله لكن هدي دوني مبدأ أمر رسالة أما وجدوا إنا الحقيقة صنفت على إنا تصور وحيالك لو بدل بتكوي دي سوا صح وكان لينا إيجنا وحنا ويديستا أما حاسس كان نقضان أما علمها نقضان ودردان يعفس وأي وقت إيجا بدل أو مرر بدل أنسين لها ayaa wuxuu ku baxayaa ummadda iyo dacwada waa laga yaabaa marka inay iga cafiyaan oo iga siiyaan laakiin adiguna markaas baad wax ku keeni kartaa mabda aad xambaarsan tahay taasna waxaan isleeyahay waxyaalaha duruusta waxaan kaloo idiin sheegayaa oo warku shaqtimayaa haddaanu sheekh cali su'aale igula soo noqon dadkan Soomaaliyeed ayaan anigu ku soo dhex koray intana ku soo leekaaday intana aan ku soo leekaa waxaan aaminsanahay iyaga inaan bartay iyaguna ay barteen saas darteed waxaan idinka sheegayaa waxyaalahooda yani xumaan badan baa jirta oo laga sheego maanta waxaan idin sheegaa anigu yani kalsoonida aan ku qabo dadka Soomaaliyeed inay tahay midda aniga najaaxayga qaybta koowaad ka يعني هدي أن وحكون نجحي أما عمل أن كقولستي بعد الله سبب حقوق كالسوني أنا أن كوكا بضتكاس for example هدي أن مال إما دوّدن ولقي أنا أوتيجي أما قبل أنا ولقي تورتوا والله ما ذي قبل هذا الصومالي الأردن لو يعدل لك الصوت بلابه إلا يرأس كنبوري قبل أنا تجين أنا دعوة كجيلين أنا محتوى بجرو تجربة في عمر مرة أولى قبائل كذا ضد كذا مقالوين كذا وان برتي مرة وانا لا نولا مقالوين يدبت حردين شيء سكود الهرد ضد في عنيني ضد رسالة يأدون الكفر كلنا إليهن هدي هلان وقال في ونفسنا يكفر إليهن حلال يوحي دورنا الشعوب تأدون كأن لقيه لكريم إلا لقيه لا وميزانه وقال إليه بني آدم ويعيبه هذا كالولي لكن أنت أصنوا تجربة أنك كلا صوب حي ساس درتين هدي أن رير كستا أما مجال كستا أما قبل كستا ضد Soomaaliyeed meel jooga hadaan u tago waxaan ogahay ama aan aaminsanahay oo ku kalsoonay inaan ku najiix karo waxaan la yiraahdaa sida adigu dadka ka i'tiqaado ay adigana ku noqdaan
ساسانا إلهي سبحانه وتعالى يقسيه إلهينا وحن كبر إياه خير كاسي ومحبضاس إنه إلهي سبحانه